gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed Maxamuud Cabdi Kariin Gabayre ayaa maanta magacaabay gudoonka cusub ee rugta ganacsiga gobolka Banaadir oo si ku meel gaar ah xilkan u hayn doono muddo 2 sanadood ah inta ay doorasho ka dhacayso. mudane Gabayre ayaa munaasabada magacaabista ka sheegay inuu soo dhamaaday muran dheer oo muddo soo jiitamayay wada tashi dheer kadibna in ay ganacsatada iyo rugta ganacsiga isla qaateen in si ku meel gaar ah loo magacaabo gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Banaadir iyo ku xigeenadiisa. waxaa kaloo farxad ah in maanta muran soo jiitamay muddo dheer oo ku saabsanaa rugta ganacsiga gobolka Banaadir oo muddo naga banaanaa in ay maanta noo buuxsami doonto iyadoo waliba si ku meel gaar ah oo rabno iyadoo doorasho inay noo timaado insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo waxaan hadda isla garanay markaan ganacsatada la tashanay markaan gudoonka rugta ganacsiga la tashanay markaan gurubooyin badan aragnay oo businesska ah waxaan aragnay gobolka Banaadir rugta ganacsiga gobolka Banaadir inaysan mumathal ku lahayn rugihii ganacsatada gobolada markay isu yimaadaan iyo rugta ganacsiga qaranka waxaan isla qaadanay in si ku meel gaar ah gudoonka aan u magacaawno gudoonka rugta ganacsiga oo ah gudoomiye iyo afartiisa ku xigeen iyo xogaha guud iyo xubnihii matal lahaa boorka rugta ganacsiga gobolka Banaadir oo ayaguna ilaa ka koobnaan doona 12 qofood dhammaan isku jirkooda ilaa 15 qof ay noqon doonaan hadda 6 qof waay inta hadda aan soo hormarinay 9 qof dib looga dari doonaa insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo. gudoomiye Gabayre ayaa munaasabada uga faa'iideystay isagoo u mahadceliyay madaxda qaranka sida ay u sharfaan ganacsatada isagoo tusaale u soo qaatay khudbadii ugu dambeysay ee uu ra'iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Khayre ka jeediyay dalka Qatar taas oo uu ku amaanay ganacsatada Soomaaliyeed. munaasabadan laftigeeda waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto inaan ra'iisul wasaaraha qaranka iyo dawladdeena madaxweynaha jamhuuriyadda inaan u mahadcelino sida wanaagsan oo ganacsatada ay u sharfaan oo markasta ay sharafkooda iyo karaamadooda ay kor ugu qaadaan. khudbadii ugu dambeysay oo hadda uu Qatar ka akhriyay ra'iisul wasaaraha qaranka wuxuu aad ugu amaanayay ganacsatada Soomaaliyeed waxa ay dalkooda ka qabteen iyo siday u horumariyeen iyo amaanada ay leeyihiin iyo haddii xataa dagaal jireen inaysan ganacsato kala qaybsaneen. wadankan wuxuu u baahan yahay kaliya in la isqiro oo la is amaano oo qof walba qofka kale waxa uu qabto haddii uu yiraahdo waa maasantaa la isla hore loo soconaa laakiin haddii la isqariyo waxa imaanaysa cadownimo bilaabanaysa marka jawiga cusub ay noo bilaabeen dawladeenan waxaan ugu rajaynaynaa in Ilaahay ayagana guuleeyo anagana nagu guuleeyo aanadaan ugu mahadcelinaynaa ra'iisul wasaaraha qaranka khudbadii qiimaha badneed oo uu ka jeediyay kulankii Qatar ka dhacay. xogayaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed Cumar Cabdi Nuur ayaa akhriyay warqadda magacaabista ee xubnaha cusub rugta ganacsiga gobolka Banaadir. ujeedo magacaabis rugta ganacsiga gobolka Banaadir markuu arkay baahi maamul ganacsi oo ka jirta gobolka Banaadir markuu wada tashi muddo dheer la sameeyay qaybaha kala duwan ee ganacsatada degan gobolka Banaadir markuu la tashaday gudoonka rugta ganacsiga iyo warshadaha qaranka Soomaaliyeed markuu ku qancay in lagama maarmaan ay tahay in la helo maamul rug ganacsi oo matasha gobolka Banaadir oo banaaneed muddo 3 sano ah wuxuu si ku meel gaar ah ugu magacaabay gudoonka rugta ganacsiga gobolka Banaadir mudanayaasha kala ah mudane Axmed Cabdullaahi Xasan gudoomiye mudane Axmed Jimcaale Maxamuud gudoomiye ku-xigeenka koobaad mudane Shire Nuur Gacal gudoomiye ku-xigeenka labaad mudane Ibrahim Abuukar Amiin Shaamo gudoomiye ku-xigeenka saddexaad mudane Ibrahim Cabdulqaadir Xuseen xogayaha guud mudane Maxamuud Ibrahim madaxa ganacsiga guud iyo maaliyadda muddo xiloodkooduna waa 2 sano oo ka bilaabmaysa maanta wabillahi tawfiiq. gudoomiyaha cusub ee rugta ganacsiga gobolka Banaadir Axmed Cabdullaahi Xasan ayaa soo dhaweeyay xilkan cusub ee loo magacaabay. magacaabisana la magacaabay ku meel gaarka oo 2 sano inaan ku shaqeey doonana Ilaahay inuu nagu xafidaan weydiisanaynaa adinkana waxaan idinka rabnaa taladiina iyo wax garab istaagiina wax badan ay noo gashaa inaad nagu garab istaagtaan nagu garab siisaan oo inaan dhihin nimanka waa la magacaabay aan sugno waxa ay sameeyaan. qaar ka mid ah ganacsatadii ka soo qayb gashay xafladda magacaabista ayaa hambaliyeeyay mas'uuliyiintan cusub ee loo magacaabay rugta ganacsiga gobolka Banaadir. anagoo ku hadlaya magaca beeraleyda labada shabeelle waxaan soo dhaweynaynaa gudoonka cusub ee Banaadir loo magacaabay. Banaadir marka la magacaabo waxa weeye qof madaxa ka jiranay ee maaragtay fiyoobaado waaye wadanka oo dhan meeshii laga fiirsanayo waaye. u faraxsanahay oo haddaan ganacsatada nahay waana soo dhaweynaynaa aad iyo aad aan u hambalyeynayna insha Allah ta'ala waa in kugu duceynaynaa inuu Ilaahay inii fududeeyo. Cabdi Waxiid Cabdullaahi Daahir warbaahinta Dalsan Muqdisho.